xadiidkii saxiixa nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam ragga wax badan baa kaamil noqday laakiin dumarka waxa kaamil noqday oo Maryam iyo Aasiya Maryam bint Imraan wa Aasiya imra'atu Fircawn kamaalkoodaasi ma gaarsiinayba la inay nabi anbiya ahaayeen laakiin darajadu inay sareysay ayaa maaragtay ay tilmaamaysa xadiid kale isaguna saxiixa waxa uu tilmaamaya dumarka waxa ugu fadli badan afar laba ummadan iyo laba hore Aasiya iyo Maryam iyo Khadiija iyo inanteedii ina rasuul Faadima kaasina waa saxiix Aisha meesh fadhidayna nabigu wuxuu ku yiri Aisha dumarka kale waxay uga fadli badan tahay raashinka federation kale ila ama jacburku sidoo raashimada kale uga fadli badan adigana inta saa kugu filan hagu inaas marka waxa weeye waxa la yiraahdo amaantu wax wanaagsan weeye cid waliba amaanta way ka heshaa dumarkuna way ka sii helaan in badan aynu dumarka ay saysana hadaad amaan leedo sidinka way ka dabcin leeyahay